xogayaha flinta dawladda hoose ee degmada Burco Mudane Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan ayaa shir jirayd oo saaka ku qabtay xafiiskiisa magaalada Burco waxa uu baaq balaaran ugu diray guud ahaan bulshooyinka ku dhaqan magaalada Burco kaasi oo ugu baaqay inay ka qayb qaataan dardargelinta bilicda horumarineed ee ka socota gudaha magaalada Burco waana kan xogayaha Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan oo rimahaasi ka hadlaya marka hore bishii maanta ay tahay labadii bishii koobnaad tiidin waxaan halka fariin gaar ah uga diray dadweynaha reer Burco fariintaas oo hore media lagu sii diray dhowr jeer ku celcelinay waxa weeye in mar walba ku celinaa waa muhiim qodobada waxay kala yihiin nadaafadda guud ee magaalada waxaan dadweynaha ugu codsanaynaa in nadaafadda guud ee magaalada nala shaqeeyo gacmo wada jir wax ku wada qabtaan baytka Soomaalidu haddii aydan iskaga barbar taagin waxba anagu ma tari karaan waxaan markaas ku sifaha wax noogala qabanaysan maxaa kamid ah qashinka dadka Itoobiyaanka loo soo dhiibayo ee aan goobihii loogu talagalay aan gaarsiinaynin waxaan dadweynaha ku codsanaynaa bifadlakum in qashinka lagu hubsado aanta loogu talagalay ama goobta qashinka laga leeyahay waayo ninka Itoobiyaanka ee aan labada kun siiso ee atraa qashinka iga qaad danna kama laha cidna ka xanuunsan mayso isagu markiiba automatically wuxuu geenayaa halka uu soo ay malowis ka dhigay kawanin aan asteex wadanka iyo dalka toololahay ka waxaan halka ku celcelinaynaa in qashinka guryaha laga soo dhiibayo in lagu dalaalo in la geeyo goobta qashinka oo aan meel ka sokaysa la geeyo taasaan dabadeedna anagu wax ka guranay talabaad kuntii gaadiidka iyo magaalada Burco caasimadii labaad wadanka oo maalinta ka dambaysa sii fidaysa markay sii fidana waxa sii badanaya maxay qashinka sii badan sableeshkii baa sii badanaya dhismihii baa badanaya qashinku loo badanaya marka waxa weeye waxaanu leenahay runtii waxa ka raali haarisan oo aanu noqsay insha Allah iyaguna keenina gaadiid inta ka taya badan ama ka tira badan si uu u wada gaaro magaalada imika waxa dhacday inta badan cabartan dad ku keenan guriyo iyo xaafado dhan oo aan baabuurta toos joogto uma taa insha Allah marka imika gaadiidka cusub sano keeno waan ka baxaynaa insha Allah taala hadii la raali karo waxaan taa kale uga gudbayaa reer Burco inay iska soo bixiyaan hadii ay qurbo joog yihiin iyo hadii wadanka joogaanba cashuurta dhulka banaan muwaadin halkan in badan baan ka sheegnay cashuurta dhulka banaan hadii aan bixinin kama xigtid muwaadinka kale lahaanshiyaha meeshan waxaad ku sheegan kartaa marka aad bixiso cashuurta ayaad mulkiile tahay oo aad dhulka leedahay oo ay hantidaadii tahay oo muwaadinka kale aad uga xigtaa oo soo dacwoon kartaa hadii lagu qabsado kaamase yeelayno cashuur la'aan inaad ku sheegato dhulka banaan waxaan aad iyo aad ugu celcelinaynaa mar walba dadweynaha inay cashuurta dhulka banaan soo bixiyaan maaha markii ugu horeysay xogayaha flinta dawladda hoose ee degmada Burco Mudane Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan oo baaq sidan oo kale ah u diray bulshada ku dhaqan gudaha magaalada Burco waa Khalid Axmed Maxamed wararka shabakada caalamiga ee Qorolligud News magaalada Burco.